ereyga koowaad waa ereyga la yiraahdo exploit ka manaafacaadsi wanaaga loo isticmaalo markaasi we must exploit waa inaan ka manaafacaadsanaa ka faa'iideysanaa macnaha our natural resources kheyraadkeena dabiiciga ah our natural resources kheyraadkeena dabiiciga ah wisely si xikmadaysan oo caaqilnimo leh isla ereygan exploit waxaa loo isticmaali karaa qaab negatively ah oo aan wanaagsanayn oo waliba la dhihi karo qaab dhigmiirad ah oo laga faa'iideysanayo dadkii salaam waxa la dhihi karaa the company shirkadii exploited waxay ka faa'iideystay qaab xun uga faa'iideystay its workers shaqaalaheedii waa ka faa'iideysi dhigmiirasho camal ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa idin wadaa laba erey oo cusub oo qayb ka ah barnaamijkeenii laba erey iyo laba daqiiqo intaan soo horogelin bishan June ee sanadkan 2026 koorsooyin cusub ayaan bilaabayaa markii qofku u baahan hanala soo xiriiro si uu qayb uga noqdo koorsooyinkaas cusub ee aan bilaabay bishan June ee sanadkan 2026 hadduu aan leedmo Best online English course in Somalia. Learn from the expert teacher, Abdirisak British. ereyga koowaad waa ereyga la yiraahdo exploit ka manaafacaadsi wanaaga loo isticmaalo markaasi we must exploit waa inaan ka manaafacaadsanaa ka faa'iideysanaa macnaha our natural resources kheyraadkeena dabiiciga ah our natural resources kheyraadkeena dabiiciga ah wisely si xikmadaysan oo caaqilnimo leh isla ereygan exploit waxaa loo isticmaali karaa qaab negatively ah oo aan wanaagsanayn oo waliba la dhihi karo qaab dhigmiirad ah oo laga faa'iideysanayo dadkii salaam waxa la dhihi karaa the company shirkadii exploited waxay ka faa'iideystay qaab xun uga faa'iideystay its workers shaqaalaheedii waa ka faa'iideysi dhigmiirasho camal ah waxaad leedahay the company shirkadii exploited waxay ka faa'iideysatay oo ay dhigmiirasho ku samaysay its workers shaqaalaheedii it is workers marka waa ka faa'iideysi qaldankaas marka exploit waa manaafacaadsi si wanaagsan looga faa'iideysto marna waa ka faa'iideysi qaldan oo si negatively ah looga faa'iideysto labadaba iyada marka waa loo isticmaalaa ereyga labaad waa ereyga la dhaho sweat dhididka marka waxaan u doorayaa isaga badanaa dhawaaqiisa qaabka waxa u dhawaaqdan macaanka oo kale oo sweet ah laakiin isagu waa sweat waa SWEAT sweat ah ku dhawaaqaysa dhididka xagga dhididka marka erey ugu isticmaalka badan maalin kasta waa sweat waxaad dhihi kartaa I sweat a lot aad baan u dhiidaa when I run markaan ordo when I run markaan ordo erey kale oo waxaan rabaa asaga la macnaha inaan idin baro laakiin wax yar ka yar duwan oo kana asluubaysan oo ah perspire laftigeeda waa dhididka laakiin iyadu qaab asluubaysan loo qaataa ama waxay u baahantay qoraalada ama waa qaabka iyada formalkeeda waaye oo waa qaabka dadka akhlaaqda leh ama markii la sameynayo qaab sharafeed ama marka qaab aadaab leh loo hadlayo oo dhidid la sheegayo you are perspiring waa dhididaysaa dhihi kartaa marka you are sweating xoogaa waa ereyga maalin kasta la isticmaalo laakiin ereyga ka asluub badan oo qoraalada iyo akhyaarta isticmaalaan waa ereyga perspire marka waxay dhahaan dhididka xoogan ama marka exercise gasho ama shaqo adag aad qabato ku yimaado sweat ala qaataa dhididka xoogaha aan badnayna perspire ala qaataa halku dhig hore ayaa jiraba horses farduhu sweat aad ay u dhiidaan maadaama aad u ordaan men raguna perspire way dhiidaan xafiisii waxbay ka shaqeeyaan oo dhididka xogo aadaab loo yeelo waayo dumarka ayaguna waxa leeyahay ladies mamada halku dhiga ku jirtay ladies dumarkuna miyali oo kaliya glow way dhalaalaan ayagu dhalaalka keenay bis ay keenaa ayagu oo laba shay baa loo jeedaa markay leeyihiin women dumarka ama ladies marwooyinka miyali oo kaliya glow ay leeyihiin way dhalaalaan ayagu oo ayagu waxay hawlaha culus loogu talagelin ama dhiid yaro fax waxa ka soo dhahayo dhalaal u siyaadinaya halkaas ay ula jeedaan inta laga gaariyo casharka xiga wabilaahi tawfiiq